madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in hanaanka cadaaladda ee dalka Mareykanku uu yahay mid gabi ahaanba burburay waa weerarkii ugu dambeeyay ee uu ku qaado dhinaca garsoorka kuwaasi oo joojiyay xanibaadda uu ku soo rogay dadka ka imanaya 7 dal oo muslima. Donald Trump ayaa dadka ka socda dalalka muslimka ee ay ku badan yihiin uu ku soo rogay xanibaad dhanka socdaalka ah taasi oo aanay u socdaali karin gabi ahaanba dalka Mareykanka. wargeys ka soo baxa dalkaasi Mareykanka ayaa waxa uu qoray in 77% dadka Mareykanka soo galaya tan iyo markii la qaaday xayiraadaasi ay u badan yihiin dadka ka soo jeeda 7 wadan ee uu Donald Trump xanibaadda saaray. Donald Trumpna waxa uu arintaasi ku tilmaamay inay tahay mid halis weyn ku ah dalka Mareykanka. dhanka kalena iskuul islaami ah oo ku yaala Mareykanka ayaa la sheegay in nacaybka Donald Trump uu qabo muslimiintu ay abuurtay jawi aad u xun taasi oo kala qaybsanaana. iskuuladaasi ayaa waxay diideen mashruuc ay dawladdu soo jeedisay kaasi oo ah la dagaalanka argagixisada. asaasayaasha iskuuladani ayaa waxay sheegeen inaanay arintaasi aqbalayn isla markaasina aanay marnaba xanibaad saarayn dadka muslimiinta ah.